Mareykanka ayaa aad u cambaaraysay fal ay ku kaceen askar sida tacdariiska Soomaaliya oo la arkayay iyaga oo ku tumanaya ama xurmatiraya calanka dalkaasi Mareykanka. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaana sheegtay in arrintan wax u dhimayso xiriirka labada wadan ee Mareykanka iyo Soomaaliya, iyadoo waliba kuma sheegatay in balaayiin dollar oo ah canshuurta dadka shacabka Mareykanka ay ku khasiraan taageerada dalka Soomaaliya sanad kasta. Walaal og yahay in Mareykanku uu gargaarka mar hore goostay. Yalkada Mareykanku wuxuu sidoo kale soo dhaweeyay tilaabo degdeg ah oo ay qaaday wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya, balse waxay ku baaqeen in cadaaladda loo horkeeno askartii falkan ka dambeysay oo haatan xiran sida ay war ku sheegeen. hay'ashee dad badan ayaa dishibilin xumada askartan qayb ahaan u aaneeyay hoggaan xumada ka jirta wasaaradda gaashaandhigga tii si gaar ah loo dhaliilay hoggaanka sare oo lagu ciladeeyay inaanu tusaale wanaagsan oo dhanka qiyamka ah u dhigin askartaasi. dadka qaar ayaa sidoo kale iyaga oo dabcan ka careysan siyaasadda hujuumiga ah ee maamulka Mareykanka uu ku wajaho Soomaaliya arrintan ku farxay, laakiin qaar kale oo si waaqic ah wax u eegayay ayaa qaba in si kastaba aanay sax ahayn in qof askari ah sidan liidata u dhaqmo. waxaa barnaamijkan gacan ka geystay maqaayadda Mendy Palace Restaurant oo lagugu soo kordhiyay adeegyo cusub sida in lagu karinayo cuntooyinka munaasabadaha, aroosyada, ducooyinka, sanad guurada, shirarka iyo dalabaadka khaaska ah oo heer sare ah. meesha ay ku taalo shaashada ka milicso. dhanka waxa baryahan aad baraha bulshada u qabsaday muuqaal laga soo duubay xaafad ka tirsan degmada Hodan, dad baana tarabuunka ku tilmaamay, balse walow muuqaalka laga arkayo jid qurxoon oo labaseedla ah misna waa mid aad u kooban oo dhaxda ku go'aya. tarabuunkuna dabcan noocaasi ma aha. haddaba markaan arrintan si yara qodnay waxaa noo soo baxay laba natiijo. kow, horta meeshu ma aha tarabuunka mise ka foga ee waa xaafad isku raran ahayd oo burburkii dhisantay oo u dhaxaysa Digfeer iyo tarabuunka. tan kale dad badan ayaa soo jeediyay in dhulka yar ee bannaan ee laamiyadan ku hareeraysan jirdiino laga dhigo si ay magaaladu u hesho meelo ay ka neefsato oo cagaaran, laakiin dad aanu wareysanay waxay noo sheegeen in laamiga meesha loo saaray in lagu barariyo sicirka dhulka ee aanay dantu ahayn magaalo qurxin iyo dangu toona. waliba waxaa jirta arrin kale oo ay ka cabanayaan dadka halka laga raray. annaga ayaa ka mid ahayn dadkii dhulka deganaa, waxaana naloo sheegay in booskii hadda nala ka siinayo $60,000 ayay tiri gabar magaceeda kusoo koobtay Sahra oo arrintan kala hadashay Hadalsame Media. haddii aan wararka Soomaaliya si anba qaadnana in dhibaato igu filan farqan ku haystaa dabcan waa erayo ka mid ahayd hees ay ku luuqeyn jirtay Allah u naxariiste Khadrad Daahir Cige. aan uga socdaa Soomaalidu waa ummad aad moodo in markii ay dhib ka baxdaba ay mid cusub hilhilato. min jabhado qabali ahaa oo qarankiiba fuuqsaday ilaa ururo islaami sheeganaya oo qarax ku cirib tiray dad badan oo ka koray karaahiyadii dagaaladii qabiilada ilaa haatan oo aan u tafaxaydanay haddii aan alle naga bixin inaan galno dagaal wakaaladeed caalami ah annaga oo khabaan ah oo u kala raran dalal qalaad oo khayraadkeena isku haysta. waxa qora in lagu maali doonaana ay tahay qabyaaladiina qaaday oo aan weli na dhigin. yalkeed baan adin yara taabto mid aan kas uga soo gudbay oo ah federaalka reer fulaan iyo fashilka uu maanta ku hayo qarannimada dalka Soomaaliya oo caalamka lagaga yaqaano failed state, maadaama uu sidii mas qoorta uga duuban yahay qarankii Soomaaliyeed oo walba kun meelood uga jabay dagaaladii qabaa'ilka. haatan waxaa Puntland ka dhacday arrin runtii wanaagba loola jeedo oo ah in sharciga lagu cadeeyo xilliga uu qofka Soomaaliya u dhashay ee deegaanka ku dhaqani uu xaq ku yeelanayo halkaasi, sida in la doorto ama uu wax doorto iyo wixii lamid ah. taasoo anigu maba ogeyn awal ahayd ilaa 10 sanadood, haatanse 5 sanadood in laga dhigo laga doodayo. yalkeed waxa ugu daran sheekadana aan uga socdaa ereybixinada lagu adeegsanayo dooda umuurtan sida kelmadda muwaadinimada iyo wixii lamid ah tii ay jirto inuu qofku muwaadin u yahay Soomaaliya ee aanu dunida ka jirin muwaadin goboleed. hay'ashee taa bedelkeeda waxay ku qorxoonayd in la goboleeyo ama la degmeeyo oo tusaale ahaan la yiraahdo Muqdishaawi, Boosaasawi, Hargeysaawi, Gaalkacyaati iyo wixii lamid ah, laakiin laga daayo kelmadda muwaadin iyo wixii lamid ah ama xitaa la isticmaalo kelmadda maxalli. yaa dabcan maxalli u noqon kara Garowe ama maxalli u noqon kara Jowhar ama maxalli u noqon kara Kismaayo ama maxalli u noqon kara Burco. tan kalena walow ay dad niyad wacani dooda ka qayb galayeen misna waxaa meesha laga cadeeyay inay xitaa jiraan qodobo ku qoran dastuurka maamulka Puntland oo dhigaya inay kala maqaam yihiin dadka halka ku dhaqan iyo dadka ka kala yimaada gobolada dalka haddii ay lacala doonayaan inay halka ku noolaadaan. waana arrin iyana khalad ah. qofka in lagu xiro kaarka aqoonsiga Puntlandernimada saalkii la oran lahaa nabadoon baa qodobka hadda aad ka hadlayseen maadaama aad tiraahdeen awal hore muwaadinku 10 sano ku noqonaya qofku muwaadin 5 sano ana hadda ku soo koobteen macnaha maxaad u cuskateen? inagu qof Soomaali ah oo gobolka ka yimid oo Puntland degan 5 sano ama yani 10 sano in la yiraahdo
ka yar kuma codayn kartid waxa noola muuqatay waxaan practical ahayn inagu Soomaali baynu nahay muwaadinada iyo citizenshipku waa Soomaalinimo erayga hadii eray ahaan jargon loo adeegsanayo muwaadinka reer Puntland iyo muwaadinka Soomaaliga ah runtii waa arin aad iyo aad complicated oo isku dhex jirta oo cajaa'ibkeeda leh laakiin taas Soomaali oo dhan waa Soomaali laakiin qaabka muwaadinka loo noqonayo sharci baa qeexaya qaybtiisna waa process buu maraya qaybta kale aan dhameystirnaa rabnaa qofka Soomaaliga ah muwaadin Puntland ah weeyaa waxa su'aasheen wuxuu yeelanayaa qofkaas kaariteriyo yeelanayaa muwaadinka Puntland ku noqonayo soo Soomaali ugu dambeyntiina senatorka Lindsey Graham oo ah jamhuuri laga soo doorto gobolka South Carolina ee dalkaasi Mareykanka oo sanadka ku jiray ilaa 2002 isla markaana xulufo dhow la ahaa madaxweynaha Donald Trump ayaa si faj'a ah u geeriyooday sida la xaqiijiyay horaantii Axadii shalay toole waxaanu Graham oo aan abadkii guursanin ahaa 17 jir waxaana geeridiisa loo aaneeyay bugto soo booda ah oo sabtiga haleeshay walow uu tuhun badani ku hareeraysan yahay geerida ninkan oo ka tirsan kooxaha loo yaqaano muxaafidiinta cusub ee aadka ugu ololeeya dagaalada caalamiga ah warqaadka NBC laantiisa af Swedishka ayaana qoray in ninkan oo Washington DC aad uga ololeyn jiray in la sii wado dagaalka Ukraine ay cid ugu badan ee geeridiisa ku khasaaraysa ay tahay isla Ukraine isla markaana ay faa'iido badan ka helayaan xisbiga dimuqraadiga oo haatanba ku horeeya doorasho dhaxaadka dayrta soo aadan oo dalkaas Mareykanka looga yaqaano midterm elections isla markaana sida la filayo wax badan ka bedeli doonta aqlabiyadda labada aqal ee Congress-ka Mareykanka maadaama ay xubin muhiim ka baxday xisbiga jamhuuriga goor dambe oo jiciiba ahayd Lindsey Graham ayaa booqasho degdeg ahayd ku tagay Ukraine waxaan lagu arkayay isaga oo booqanaya warshad samaysa daroonka waxaanu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky isagoo ka shaqaynayay heshiis dhexmara sanadka iyo aqalka cad oo naqbateeno cusub oo dheeraad lagu saaro dalka Ruushka waa cod daciifay marka ay timaado gudaha xisbiga jamhuuriga ee dhinaca sanadka marka ay timaado arrimaha caalamiga ah khaasatan mawaadiicda ku saabsan Ukraine ayuu yiri Jan Hellenberry oo aan u dhuun daloola arrimaha Mareykanka isla markaana ah professor culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda daafaca qaranka oo loo yaqaano Forsvars Högskolan ee magaalada Stockholm oo ka hadlayay geerida Graham waxaanu intaa raaciyay in Graham uu holinayay inuu xal u helo bariga dhexe halkaas uu xitaa kala shaqeeyay madaxweynihii hore ee Joe Biden walow dad badan ay ogyihiin in Graham uu aad u shidayay colaadaha bariga dhexe waliba uu markuu baaqay in nuclear lagu dhufto marka Gaza way caddahay haddii la taageerayo Ukraine in geerida Graham ay khasaare ku tahay waliba dhanka xisbiga jamhuuriga oo uu dabcan ahaa awoodii riixaysay si ka badan qof kasta oo kale ayuu raaciyay Jan Hellenberry yarkad marka laga soo tago Ukraine oo sida ugu weyn runtii ninkan u lumiyay qolyaha Sahyuuniyiinta sida laga dareemi karo ilmada Rabbi Shmuley Buttigieg oo dabcan kamid ah dadka aan qoslin balse aad muuqaalkan ka arki kartaan qarada ay gaarsiisan tahay qamoyada ku habsatay Maxamed Xaaji Hadalsame TV qolad kuwi kicin lahaayo qalala sahajalayo قومي لهايو أفتي قوم مين لهايو أساسي شرعك وغبني